tartan aqooneed ay ku tartamayeen fasalada kala duwan ee Dugsiga Gateway gaar ahaan Dugsiga Dhexe ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay xarunta Dugsiga Gateway ee magaalada lascanood. tartan aqooneedkan ayaa ah mid sanadle isla markaasina sanadkii hal mar loo qabto ardayda wax ka barata dugsiyada Gateway ee magaalada lascanood. maamulaha guud ee dugsiyada Gateway maamulka ku xigeenka qaar kamid ah macallimiinta dugsiyada Gateway waalidiin aqoon-yahano badiba ardayda dhigata dugsigaasi ayaa dhamaantood maanta ka soo qayb galay munaasabadaasi waxaana tartan aqooneedkan ugu dambeyntii iskugu yimid ardayda fasalka 8aad B iyo 6aad A waxaana tartankaasi ku guuleystay fasalka 8aad B oo ah fasalka ay u tartamayeen gabdho kaliya halka fasalka 6aadna ay u tartamayeen wiilal. fasalka 8aad B ayaa noqonaya markii saddexaad oo xiriir ay ku guuleystaan tartan aqooneedka loo qabto ardayda dhigata dugsiga dhexe ee Gateway. waxaana halkaasi ka hadlay maamulka dugsiga Gateway qaar kamid ah macallimiinta hormuudka u ah fasalada tartamayay iyagoo dhamaantoodba hambaliyay guusha ay gaadheen fasalka 8aad. dhankooda waalidiin aqoon-yahano ka soo qayb galay munaasabadaasi ayaa bogaadiyay sida wanaagsan ay tartankan iskugu soo daba rideen maamulka iyo ardayda dugsigaasi. tartankan oo ah tartan aad u dheer oo sanad kasta loo qabto dugsiga hoose dhexe ee Gateway iyo dugsiga sare ee Gateway maanta tartankani wuxuu u dhaxeeyay dugsiyada hoose dhexe ee Gateway qaybta dhexe ayaa maanta soo gabagabowday wuxuuna tartankaas soo bilowday 26 bishii saddexaad ee Maaj wuxuuna soo gabagaboobay 21 bishii Abriil. intaas kadib tartanka wuxuu laga gol lahaa in lagu kobciyo oo lagu tayeeyo oo lagu taageero ardada iskuulada Gateway dhigata dhamaantood. wuxuu soo socdaba waxaa finalkii ama gabagabadii ama dhamaadkii isku soo haray labada fasal ee la yiraahdo 6A iyo 8B. 6A waa wiilal fasalkaas 8B na waa gabdho. fasalkaasna fasalkii maanta ku guuleystay tartankii gari laba nim kama qoslayso fasalka kalena wuu dadaalay kana wuu dadaalay. waa maalin ay noo soo gabagabowday tartan aqooneedkeennii iskuulkeena Gateway u dhaxeeyay ardaydeena qaaliga ah noo soo socday muddo bil iyo 17 cisho ah. alla mahadii maanta ayuu noo soo afjarmay. iskuulkan hadalhayntiisa wax badan baan dhageystay maalintii carruurtayda ugu horreysay ee iskuulka qorana anugu isagaa ku daray ciddii arday iskuul u diraysana waxaan kula taliyaa Gateway. markii koobaad maaha waan ka qayb galo xaflad loo qabanayo ardayda Gateway mid ka horreysay aan joogay aad iyo aad baan mahadsantihiin midhiisina waa la arkay. aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay tartanka siduu qabsoomay iyo sida ay u socday. sidoo kale waxaan u mahad celinayaa guddida oo runtii ayagana haya hawl aad u magaranayay qiimo badan u culus. waxaan leeyahay garab galo tartankuna si fiican buu inoogu qabsoomay. waxaan leeyahay hambal iyo guul iyo gobonimo idin rajeeyaa. weelka gooriya ayaanba Gateway waa lagu yaqaanay geyiga waa laga tilmaamay inay gaafiye xidhaane inay guulaha hantaane geeraara inay tirshaane garow mudulkii dib ha ugu noqon laga soo boqolee horta baro tacliintiyo buug iyo dhigaalkiyo badow yahow dib ha u celin dadkan soo baraarugay. maansadatan waxaa looga jeedaa gabdhihii maanta waad arkaysaan heerka ay marayaan waad arkaysaa. waxaa weeye budulkii dib ha ugu noqon laga soo boqolee badow yahow dib ha u celin dadka soo baraarugay. horta baro tacliintiyo buug iyo dhigaalkiyo badow yahow dib ha u celin. galaaskayga sigise duruus buu tabinaya dadku cajabshay dadweyne fargaada daruusa uu sareysiyo qaryaalaadu balaaran dad aqoontoodu sareyso galaaskaad ka helayso aan idiin wada diirshe diirada waa saare sigise wada gaadha.
personal graduation and Sunday personal graduation, everyone who concludes my speech. I was the best girl. من أمتي فقد محوت ظلماتي بنور علمي بآياتي كما أبقيت. qaar ka mid ah ardayda dugsiyada Gateway oo aad u da'yar ayaa halkaasi ku soo bandhigay aqoonta ay ka barteen dugsigaasi. taariikhda islaamka, tawxiidka iyo sayniska, tirada xisaabta, tusmeynta juqraafiga. gabagabadii waxaa halkaasi abaalmarnadii loogu talagalay lagu guddoonsiiyey labadii fasal ee iskugu yimid tartankaasi. dugsiyada Gateway ee magaalada Lascanood ayaa ka mid ah dugsiyada lafdhabarta u ah aqoonta gobolka Sool, isagoo sanad kasta ay ka aflaxaan kumanaan bartay aqoonta lagu barto dugsigaasi. Maxamuud Aadan Askar, Maxamuud Guray, Somali News TV, Lascanood.